kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey qodobada wararkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya mudane fahad yaasiin xaaji daahir oo maanta ku dhawaaqay in ay kala tageen madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. fahad yaasiin xaaji daahir ayaa waxa uu sheegay in siyaasad ahaan iyo isla socodkii siyaasadeed ee farmaajo ay 10kii sane ugu dambeeyey ku wada socdeen inay gebi ahaanba ay maanta oo taariikhdu ay kow tahay ay u kala dhammaatay. bulshada soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan u qaadaa dhigahaya waxaana inta badan xisbiga damu jadiid ay hadal hayaan in farmaajo iyo fahad yaasiin xaaji daahir ay ku kala tageen qorshayaal cusub oo farmaajo uu doonahayay inuu ka bilaabo gudaha dalka soomaaliya. haddaba muxuu salka ku hayaa kala tagga fahad yaasiin xaaji daahir iyo sidoo kaleeto maxamed cabdulaahi farmaajo waa madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxayse uga dhigan tahay xisbiga damu jadiid oo baqdin weyn ka qabay isla socodka farmaajo iyo fahad yaasiin? qodobkeena koowaad ayaan ku dul istaagi doonaa. qodobkeena labaad, shacabka soomaaliyeed ayaa waxa ay bilaabeen kala bixitaanka lacagaha bangiyada ugu jiro iyo sidoo kaleeto taleefoomadaba iyagoo doonaya in lacagahooda cash ay u dhigtaan xaafadahooda oo guryahooda ay ku haystaan. arrintan ayaa imaanaysa kadib markii dowladda federaalku ay soo rogtay canshuur 5% oo la saaray ummadda soomaaliyeed oo lagu sheegay in lagaga qaadi doono shacabka soomaaliyeed ama lagaga jaran doono hanaanka iibka ee wax kala iibsiga dadka shacabka iyo shirkadaha markaasi wax laga iibsanayo. waxaa dhanka kaleeto iyadana bayaan adag soo saaray shirkadaha isgaarsiinta iyo sidoo kaleeto bangiyada ka howlgalo magaalada muqdisho oo shaaciyey in aysan gebi ahaanba u hoggaansamaynin hanaankaasi dowladda federaalku ay sheegtay. iyadana waan dul istaagi doonaa ismariwaagaasi ka taagan dhanka canshuuraha cusub ee dowladda federaalku ay soo kordhisay iyo sidoo kaleeto shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada oo ayagu sheegay in aysan marna u hoggaansamaynin hanaankaasi cusub, iyadoo dhanka kalena ganacsatada soomaaliyeed ay gebi ahaanba arrintaasi ay ka hor imaatay. dowladda ayaana weli ku dhegan go-aankaasi adag ee ismariwaaga dhaliyey ee maalmihii ugu dambeeyey ee baraha bulshada dood ah adag ka dhaliyey. qodobkeena labaad ayaan ku dul istaagi doonaa. soo dhawaada muuqaalka like saare, aragtidina noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilowne agaasimihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa ahna la taliyihii amniga madaxweyne farmaajo mudane fahad yaasiin xaaji daahir ayaa maanta ku dhawaaqay in gebi ahaanba ay kala tageen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. waxa uu sheegay inuu marka koowaad uga mahad celinayo maxamed cabdulaahi farmaajo sidii xurmad iyo xushmadda lahayd ee uu iisoo doortay, ii xurmeeyey, xilalka kala duwan iigu magacaabay, iila soo shaqeeyey, ii qadariyey 10kii sane ugu dambeeyeyna aan u wada shaqaynaynin, balse ay maanta oo taariikhdu kow tahay bishii sagaalaad kowgeeda ay tahay ay gebi ahaanba soo dhammaatay isla socodkii siyaasadeed wada shaqayntii maxamed cabdulaahi farmaajo iyo isaga ay wada lahaayeen. waxa uu dhanka kala xusay in uusan wax faahfaahina ka bixinaynin sababaha ay farmaajo ku kala tageen. xogo hoose oo aan kasoo xigenay shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo si dhow ula socday mas-uuliyiintaasi xisbiga nabad iyo nolol ka wada tirsanaa waa farmaajo iyo fahad yaasiine ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in kala tagoodu uu salka ku hayo qorshayaal cusub oo farmaajo uu doonahayay inuu ka hirgeliyo gudaha dalka soomaaliya. waxaa la sheegay in gebi ahaanba hanaanka ololaha siyaasadeed ee farmaajo uu ka bilaabayo gudaha soomaaliya asbuucyada soo socdo ee fahad yaasiin xaaji daahir uu gebi ahaanba arrintaasi uu saluugay qaabka uu ku bilaabanayo. dadka ay xulafada yeelan ay noqonahayaan maadaama isbahaysiyo la dhisahayo oo asbuucyada soo socda ay dhisi doonaan, sidaas awgeedna isagoo markaasi u arka in aysan danihiisa siyaasadeed aysan halkaasi ka muuqanin ayaa la sheegay in fahad yaasiin xaaji daahir uu gebi ahaanba sheegay in uusan xisbiga nabad iyo nolol uusan kasii tirsanaanaynin, isla markaana uu yeelan doono xulufo kaleeto iyo sidoo kaleeto jaanqaad kaleeto siyaasadeed oo dad kaleeto uu doonahayo inuu la qaato. waxaa dhanka kaleeto xisbiga damu jadiid ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud xubno ka tirsani ay shaaciyeen in kala tagga farmaajo iyo fahad yaasiin uu salka ku hayo fashil xisbiga nabad iyo nolol ku imaaday oo la xidhiidha
qorshayaasha damaca Ethiopia oo maalmihii ugu dambeeyayba baraha bulshada si weyn loo hadalhayay Farmaajo oo sheegay in ay dekado badan Ethiopia siinahayaan taasi oo dhaawac siyaasadeed ku noqonaysa xisbiga sida iyagu ay markaasi qabaan si kastaba Fahad Yaasin Xaaji Daahir waxa uu si cad u sheegay war saxaafadeed oo barihiisa akoonka internetka uu ku leeyahay uu ku baahiyay waxa uu sheegay in ay u soo kala dhamaatay isla socodkii siyaasadeed ee isaga iyo Farmaajo wixii intaasi ka dambeeyana oo la tashiyo badan la samayn doono saaxiibadiisa siyaasadeed ee arrimaha siyaasadda kala taliya isla markaana uu bulshada Soomaaliyeed la soo wadaagi doono talaabada xigta ee siyaasadeed ee uu qaadi doono Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayay bulshada Soomaaliyeed inta badan u taqaanaa inuu yahay nin xuraan badan siyaasadiisana sida Farmaajo kale to degan isla markaana ay u fududahay in dawlado waaweyn uu soo qaato oo markaasi uu si qofka uu doonayana uu kursiga ku fadhiisto Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa laba marba la tijaabiyay labadaasi marna guulo waaweyn ayuu ka keenay dhanka siyaasadda oo hoggaanka ugu sareeyo qofkii doonayay oo sidii uu rabay ay wax u dhaceen walow Farmaajo kii ka horreeyay ay markaasi isgafeen oo ay ku kala tageen Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayay bulshada Soomaaliyeed waxa su'aalo badan ay iska weydiinayaan yuu la bahoobi doonaa oo markaasi dhanka siyaasadda oo la midoobi doona maadaama Soomaaliya xulufo ay tahay xisbiyaduna ay isku tagi doonaan oo markaasi asbuucyada waliba soo socda la rajaynayo in xisbiyada siyaasadeed ee dalka kuwa talada haya iyo sidoo kale kuwa mucaaradkaba inay markaasi iskaashi siyaasadeed ay samayn doonaan Farmaajo ayaa si weyn loogu xabanaya inay si dhow ay iskugu dhow yihiin madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isku xulufo ay yihiin waxa sidoo kale to iyadana ay bulshadu si hoose ay maaragtay ay xogo iskugu gudbinayaan in Saciid Cabdullaahi Dani isagana uu qayb ka yahay oo isku xulufo ay yihiin iskaashi adagna ay dhisi doonaan mar dhow si wada jiran ay ugu dhawaaqi doonaan iyadoo dhanka kalena laga saadaalinayo sida isla socodka siyaasiyiintaasi rugcadaaga inta ay isla socon karaan iyo sida ay u midoobi karaan maadaama xilligii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay si weyn u kala fogaayeen madaxweyne Sheekh Shariif iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani oo Farmaajona ay si weyn uga hor imaadeen waynu eegi doonaa daawadayaal qorshayaasha xiga ee Fahad Yaasin iyo sidoo kale dhinaca xisbiga nabad iyo nolol ee gudoomiyaha uu yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo go'aanada ka soo baxo muuqaaladeena dambaan idin kula wadaagi doonaa hadduu Allaahimo dhinaca kale to shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay bilaabeen kala bixitaanka lacagaha u yaalay bangiyada gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale to shirkadaha isgaarsiinta oo markaasi iyaga naftirkooda akoona ay shacabka Soomaaliyeed kaga leeyihiin dhinaca telefoonka gacanta lagu qaato oo dhaqaale badan halkaasi ay ku kaydsadaan waxaana arrintaasi loo sababeynaya ismariwaagii u dhaxeeyay dawladda federaalka nidaamkii canshuuraha cusub ee ay ku soo kordhiyeen shacabka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan arrintan ayaa asbuucyadii ugu dambeeyayba socotay iyadoo ganacsatada magaalada Muqdisho ay guddi iska saareen isla markaana ay la kulmeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ina kala hadleen in arrintaasi aysan qaadi karin nidaamkan canshuuraha cusub ee ay soo kordhiyeen shacabka Soomaaliyeed ayaa iyagana walaac xoogan ka muujinayay dhowrka asbuuc ee ugu dambeysayba iyadoo halkaasi ay kala taagan tahay ayay go'aan soo saareen bangiyada ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta ee dalka Soomaaliya waxa ayna sheegeen in gabi ahaanba aysan nidaamkaasi cusub aysan qusaynin aysan hirgelinaynin si adag ayayna uga hor imaadeen nidaamkaasi 5%ga ee dawladdu ay hore u shaacisay inay ka jari doonto nidaamka kala iibsiga oo markaasi shakhsiga shacabka ee wax iibsanaya iyo shirkadaha laga goosan doono lacagta ay markaasi wax ku iibsadeen dabcan haddii aad $10,000 wax ku iibsatay 5% ayaa ka go'aya lacag walba oo wax ku iibsatay 5% ayay dawladda automatically ka jaran doontaa akoonka ay ku dhacday ama akoonka laga soo saaray arrintaasi bulshada Soomaaliyeed waxay u arkeen inay tahay culays xoogan dawladda baaqiyo kala duwan ayay u saareen walow dawladdu aysan wali go'aan rasmi oo lagu qanco aysan ka soo saarin oo aysan shacabkii Soomaaliyeed wali aysan qancin shacabku waxay sheegeen in gabi ahaanba lacagahooda ay la baxayaan aysan isku haleyn karin nidaamkan dawladdu ay soo rogtay ee lagu dhacayo shacabka Soomaaliyeed shirkadaha iyo sidoo kale shacabku waxay u arkaan lacagtan inay tahay lacag aad u tiro badan isla markaana ay tahay in ay shacabku ay ikhtiyaar u leeyihiin
inay diidaan iyo in ay yeelaanba shirkadaha gebi ahaanba waxa iyagu ay mar horeba cadeeyeen haddana ay ku soo celcelinayaan in wax saameyna aysan ku yeelanaynin akoonada dadka shacabka u furan ee bangiyada iyo sidoo kale shirkadahaba uga furan lacagta 5% balse shacabka ayaa arrintaasi ay ka daadegi weyday oo ilaa iyo hadda aan ku qancin waxayna bilaabeen in lacagahooda cash ay ula baxaan ayna dhigtaan xaafadaha iyo sidoo kale dukaamada ay ku ganacsadaan waynu eegi doonaa dawadayaal xaaladdu marba marka ka dambaysa way ka sii daraysaa waxaana moodaa hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay kolba meel ka furanayso kolba meel u yaacayso kolba meel ay ka jabayso ayaad moodaa wixii kasoo kordhana muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu allay